بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiganaa casharkeenii taxanaha fasalka tobnaad cutubka shanaad casharkan waa casharkii nagu dambeeyey waxaan dhigan doonaa tangent angle iyo second angle hal mar taabte xagasha iyo laba mar taabte xagasha ayaan dhigan doonaa qaab aad iyo aad u fudud casharkan waa casharkii u dambeeyey insha Allah waxaan kala doonaa cutubka lixaad ee ardayda Soomaaliyeed gaarsii si ay uga faa'iideystaan halkan mas'uuliyadda ayna saaran tahay inaad gaarsiisaan arday kasta oo Soomaaliya oo taqaano meeshin dhacdo taag dhacdo oo u dirto sidoo uga faa'iideysto casharkeena bilaabanana ay la soco waxaan ku dhiganaa maanta tangent angle baan dhiganaa iyo second ayaan dhigan doonaa ama second tangent hal mar taabte iyo laba mar taabtaan dhiganaa office markaas sidan haddaan dhaho oon sidaa usoo jeexo halkaa u jeexo a iyo b iyo c aan u sameeyo markaa lay dhaho sida markaan dhaho haddii lay siiyo horta intaan waxba laysiin waxaan dhahayaa markuu sidan ii yahay waxaan dhahayaa measure of baan dhahayaa cabirka measure of a c plus measure of c b yaa ila mid ah 180 degree intaas ila mid tahay haddaan dhaho tusaale ahaan intaas waa 140 soo saar la dhaho measure of b waxaan dhihi measure of b baa ila mid ah 180 laga jaray 140 maxaa helay 40 baan helaya halkaas markaa waa 40 waa isla fahanaan malinaya inta waxaan dhihi karaayo kale measure of b x haddaan xaggaa ku daro measure of b baa ila mid ah 1/2 baan dhahayaa measure of a x c ba minus baan dhahayaa sidaasaan dhahayaa ayaan dhahayaa intana waa ila mid waa isku mid markaa intaas maadaama intan yahay labaduba ay wareeg iyo wareeg isla yihiin waa laba wareeg maxay noqonayaa marka hal wareeg buu isku noqonayaa waa 360 buu noqon marka intani maxay la mid tahay dhahayaa loo geeyey a c yaa ila mid ah 360 maadaama wareeg yahay waa 360 marka waxaan dhahayaa intan 360 oo laga jaray a c maxaan haystay 140 maxaan helay 220 degree xagaa 220 degree ayaan ku qoranayaa waa isla fahlan malinaya waa a x c intana waad u isticmaali kartaa waa isku mid qaacidad isku qaab weeye haddaan dhaho si aan u isticmaalo tan aan u soo saaro bida waxaan dhahay 1/2 intan aye 140 kii siidahayd iga jar maxaan haystaa waa 80 labo qayb waa 40 bd saasaan ku soo helay waad aragtaan malinaya labada jeer waad u isticmaali kartaa qaacidada waa isla fahanaan malinaya waad isticmaali kartaa labada qaab waad u isticmaali kartaa qaacidooyinkan qornay haddaan sidan dhaho soo jeexo oon xariiq soo jeexdo halkan iyo halkan kalena isweydaarans ku qoro aan dhaho a b c d aan dhaho e asaas maxagaan f halkan g aan qoro markaa la isiiyo measure of d e la isiiyo d e maxaa la isiiyey 150 baa la isiiyey haddana measure of f g la isiiyo 30 la isiiyo 30 qorto markaa la weydiiyo measure of a b measure of a b la weydiiyo markaa measure of a b la weydiiyo u fiirso hortaan qorto halkan aan ku qorto 30 measure of inta marka la weydiiyo kan u fiirso intan waa maxayna waxaan raadinayaa f c g baan raadinayaa f c g waa maxayna waa second angle way
laba mar buu taabtay laba mar taabtay way jimay warkaas marna waa ka mid kasta waa laba taabtay markuu sakantiya waa laba taabtay maxaan dhahayaa 1/2 yaan dhahayaa 1/2 boqoliyo konton minus 30 ayaan dhahayaa kabacdi isku soo gey ama ka jar 120 baa soo haraya ay 60 baan helay marka 60 degree bay soo baxday marka halka maxaan ku qoran 60 labaduba 60 iyo 60 bay noqonayaan marka halkan kalena waa 60 isku mid bay noqonayaan isla fahmin malin intaas marka intii la weydiina waxana waa a intan marka intan iyo intan maxaan dhihi maadaama yahay waxaan dhahayaa a b baa ila mid ah 180 minus 60 ila mid tahay 120 marka halka 120 baan ku qornay waad fahamtay baan u maleynayaa su'aalaheena ay noo socda fiirso hadii la dhaho sidan aan dhaho oo la dhaho halkaas a b c la isiyo ay kala xidho halka measure of AC la dhaho 150 ma haysta measure of AC kabacdi marka 100 marka la weydiiyo BAC soo saar la dhaho measure of BAC waxaan dhahayaa inta la isiyo waa AC halka waa 150 baan dhahayaa waa intaas inta la isiyo marka inta marka la isiyo halkan bida maxaan helayaa b waxaan helay maxaa soddon baa helay waayo maxaa yeelay 180 ka jar soddon bay soo baxaysaa marka halkaas soddon baan ku qornay haddaan sida markaa dhaho saa u jeexo a aan dhaho b c b aan dhaho aan sameeyo saddexdaas markaas u fiirso maxaan dhahayaa intaas waa maxayna waa intii diameterkii weji marka 150 laba u qaybi 75 marka maxaan dhahayaa intaas waa 75 intaas marka mid kasta waa 75 ay noqonaysaa maadaama 150 buu yahay ma 150 halka 75 halkana 75 buu noqonayaa labada meelood ba 75 ay noqonaysaa marka intaas maadaama la isiiyey intan hadii la isku geeyo ama sabab 180 bay isku wada noqonayaan marka su'aasha la weydiiyay waa maxayna waa inta waxaan dhahayaa 75 ayay soo baxday way la fahantaan u maleynayaa su'aashina kala noo fiirso forex haddaan dhaho a b c aan dhaho a b c baan u sameeyey aan ku qoro halkan forex plus 14 halkan aan ku qoro 12 x plus 22 marka la weydiiyo measure of a d c la weydiiyo cabirka inta la dhaho soo saar maxaan dhahayaa marka ugu horeysa maxaan dhihi marka ugu horeysa intan ayaan soo qaadani waxaan dhahayaa maxayna 4x plus 14 plus 12 x plus 22 yaa la mid ah 180 marka sidaa dhaho inta isku soo geey waa 16 x intan isku soo geey waa plus 36 baan dhahayaa yaa la mid ah 180 marka dhan kasta 180 ka jar yani 300 yani 36 ka jar baan u jeedaa maxaan helay 16 yaa la mid ah 144 baan dhahayaa marka dhan kasta u qaybi x maxaan helay x 9 bay soo baxaysaa marka x is equal to 9 baan dhahayaa x markay 9 soo baxdo marka ugu horeysa maxaan u imanayaa ac baan u imanay ac markaan u yimaado intaasaan haystaa ac markaan u yimaado si aan u helo maxaan haystay 12 xaggii aysta 9 baan haystaa igu dhufo plus intaasaan dhahaya marka maxaan helayaa 100 eber 8 baan dhahayaa 108 loo geeyay intan maxay noqonaysaa maxayna 130 marka hadaba su'aashii la weydiiyay imanaya d a d c baan dhahayaa ADC waa bareega dhan weeji marka maxay noqonaysaa 360 buu noqonay bareega dhani 360 baan dhahayaa oo laga jaray 130 maxaan helay 100
230 baa ii soo baxday 230 ayaan helay su'aasha waad fahantaan u malaynaya waxaan ku dhiganaynaa su'aashan u dambeysay weji haddii sidan la siiyo a iyo b iyo c loo sameeyo halkana loo sameeyo d e f aan dhaho d e f kabacdi halkaa la siiyo 50 halkan hoostana la siiyo 120 xaggaa korka bidana 50 la siiyo markaa la weydiiyo measure of ef la weydiiyo iyo measure of c measure of a measure ku qoro m kan m iyo measure of d e la weydiiyo maxaan dhahayaa markaas intana la weydiiyo halkaas iyo halkaa baad aragtaa maxaan dhahayaa markaa waa intan oo laga jaray maxayna kotonkaasoo laga jaray 180 waa 130 ma dhahaya d iyada waa intaas kana inta halkan maxaan dhihin intan ka jar waa 60 markaa haye kan kalena maxaan dhahayaa iyo kaasoo noqon maxaan dhihi markaa 180 iga jar 50 iyo 60 waa 110 ka jar 180 waa 70 markaa kaana 70 baan dhahayaa kan kalena u fiirso maxaan dhihi isagana intan iga jar maxay 110 baan dhahayaa waad fahantaan u malaynayaa waa intan iyo intan wareegu sidii haddaa isku wada geyso intii buu ii soo baxayaa 360 buu ii soo baxayaa asla fahanaan u malaynayaa waa su'aashii u dambeysay casharkii noogu dambeeyay wey fahantaan u malaynayaa hadday tahay markii hore soo booqatay channelkan subscribe saar arday kastoo Soomaaliya oo taqaano meeshinta u dir uga faa'iideysta halkan mas'uuliyadda inagayna saaran tahay waa anigoo reelina assalaamu calaykum waraxmatullahi fahantaan u malaynayaa hadday tahay markii hore soo booqatay channelkan subscribe saar arday kastoo Soomaaliya oo taqaano meeshinta u dir uga faa'iideysta halkan mas'uuliyadda inagayna saaran tahay waa anigoo reelina assalaamu calaykum waraxmatullahi